waxaa maanta magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya shir isugu yimid wasaaradaha qaabilsan ka hortagga cudurka COVID-19 kaasoo warbixin looga dhageystay bahda caafimaadka dalka taasoo ku saabsan cudurka safarka corona oo mar kale kusoo laba kacleeyay gudaha Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa faahfaahin ka bixiyay go'aanadii ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaasoo la xiriiray cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyay kiisas cusub laga helay gudaha Soomaaliya. Qodobada laga soo saaray ayaana waxa ay kala yihiin in dhammaan la fasaxay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa aan laga maarmin, in shaqaalaha dowladda iyo dadka kale ay xirtaan afxirka ama maaska, sidoo kalena ay badiyaan kala fogaanshiyaha, in la yareeyo isu socodka dadka sida safarada, sidoo kalena masaajid lagu amray in ay dadka ay kala fogaadaan xilliga cibaadada isla markaana ay afka ay xirtaan. Dhammaan ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu amray in ay fuliyaan go'aanadii ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Qodobka ugu muhiimsan ee dadka Soomaaliyeed isha ay ku hayeen ayaa ah kan ku saabsan mamnuucidda isku soo baxyada maadaama musharaxiinta mucaaradka ay qorsheeyeen in jimcaha soo socota ay qabanayaan dibadbaxyo waaweyn kaasoo looga soo horjeedo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weli ku sugan xarunta madaxtooyada Soomaaliya lana qorsheynayo inuu ka dhaco xarunta daljirka Daasoon degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. Dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalkii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu sheegay in dibadbaxyada ay dhacayaan maalinta Jimcaha ee nagu soo wajahan, waxaana uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiisaba ay ka qaybgeli doonaan dibadbaxyadaasi isla markaana shacabka ay ugu hormarayaan xarunta taalada. Waxaana sidoo kale Xasan Sheekh uu sheegay in dibadbaxyadaasi looga soo horjeedo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday Farmaajo oo weli ku sugan xarunta madaxtooyada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku tilmaamay xukuumadda waqtigeedu idlaaday in ay yihiin kuwo dana gaar ah kale arrimaha la xiriira coronavirus. Uu sheegay in aysan khatar ku ahayn dadka Soomaaliyeed balse ay dana gaar ah ay ka fushanayaan, waa sidoo hadalka u dhigay. dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo gudoomiyaha xisbiga dad qaran ayaa dhammaantood waxay sheegeen in maalinta Jimcaha dibadbaxa uu ka dhici doono xarunta taalada, taasna ayaga ay tagi doonaan isla markaana halkaasi ay ku soo dhaweyn doonaan shacabka isu soo bixi doona kaas oo loogu soo horjeedo madaxweynaha waqtiga uu ka idlaaday.